waxa uu noqday kabtan wanaagsan waxaana uu dunida baray sida ay tahay hogaaminta dhabta ah dhanka kubadda cagta sidee ayuu u noqday goolhaye xirfadiisii weerarka iyo goolalinta xilligii uu yaraa noqoshadiisii markii dambe difaaca hadalkii la yaabka lahaa ayuu ku yiri Gerard Pique markii uu ku soo dhaweeyay gudaha garoonka xilli uu dhaawac ka soo laabtay goolkii wadnaha jaray jamaahiirta Jarmalka xirashadiisii calaamada xushmada ah ee kooxda Barcelona ilaa noqoshada haliyay aan la hilmaami karin kani waa Carles Puyol kamid ah difaacyadii ugu wanaagsanaa ee soo mara Barcelona qaranka Spain iyo guud ahaan kubadda cagta caalamka waxa uu lahaa shakhsiyad sida libaaxi oo kala ah waxaana uu ku guuleystay inuu dago qalbiga jamaahiirta Spain iyo cushaaqda kubadda cagta xilli aan la hilmaami karin maalin maalmaha kamid ah Carles Puyol ayaa ka soo laabtay dhaawac markii uu dib garoomada ugu soo laabtay ayaan ku yiri soo laabasho wanaagsan kabtan waxaana uu igu jawaabay Amos oo diiradda saar kulanka sidaasi waxaa ku waramay Gerard Pique kadib waraysigu siiyada Guardian Puyol kabtankii ugu fiicnaa abid Gerard Pique ayaa qiray sida uu Puyol u ahaa hogaamiye maskaxeed oo khayr caadi ah taasoo dhaxal siisay inuu noqdo kabtanka haliyayga ah ee kooxda Barcelona hogaamiye mid laga cabsado daacadnimo intaba waxa uu ku muujiyay garoomada kubadda cagta intii uu ciyaaryahanka ahaa kani waa shakhsiga aad u taqaano Carles Puyol waxa uu dunida ku soo biiray 13 Abriil sanadii 1978 xilligan da'diisu waa 40 jir waxa uu ku dhashay meesha loo yaqaano La Pobla de Zagor oo Spain dhacda waxa uu ahaa yaraantiisii mid jeclaa kubadda cagta isagoo ahaa goolhaye aad looga jeclaa xaafadiisa kadib dhaawacyo ku soo laabtay waxa uu go'aansaday inuu noqdo weeraryahan balse kubiiradiisii beerta oo aad u taqaano La Masia ayaa ka dhigtay inuu noqdo difaac maadaama uu awood u lahaa inuu isticmaalo tamar badan iyo xawaare sare waxaana uu ku wanaagsanaa ilaalinta soohdinta 18 kooxda uu qaybta ka yahay hogaamiyihii reer Holland Louis van Gaal ayaa qaybta sare ee kooxda Barcelona u soo dalacsiiyay Carles Puyol isagoo aad u yaraa xilli uu safashadiisii ugu horeysay horyaalka La Ligaha dalka Spain uu sameeyay 2 Oktoobar 1999 ciyaar ay 2 gool iyo eber gool banaanka ah Barcelona kaga gaartay dhigooda Real Valladolid intaas kadib kooxaha ugu waaweyn kubadda cagta ayaa bilaabay in Barcelona ay xidigan ka shaxaadaan xidigan cajiibka ah ee Carles Puyol waxaana kooxaha xiisaha u muujiyay ugu horeysay kooxda Manchester United inkastoo ay Barcelona diiday in ay lumiyaan da'yarkooda Puyol ayaa loo magacaabay kabtanka kooxda Barcelona dhamaadkii xilli ciyaareedkii 2003-2004 kadib markii uu Luis Enrique uu kooxda ka duqoobay waxaana uu kooxda Barcelona u huray waqtigaasi wax walba ficiladiisa ayaana ka yeelay haliyay dhab ah xulka Spain waxa uu ahaa xaldoor muhiim ah waxaana lagu xasuustaa goolkii taariikhiga ahaa ee uu tareenka tartanka koobka adduunyada kaga tuuray Jarmalka oo ahaa xidiga aad u joog dheer isla markaana ku faaniyay cabirkooda balse Carles Puyol ayaa awooday inuu baro sida ay kubadda cagta muhiim ugu tahay geesinimada iyo fudeedka marka xaaladaha loo baahan yahay in lagu xasiliyo garaad iyo farsamo taasoo ka yeeshay in goolkiisii madaxa ahaa ee uu finalka Spain ku gaarsiiyay koobka adduunka 2010 aan wali la iloobin Carles Puyol waxa uu ahaa mid xakameeya xidigihiisa xushmeeyana kuwa cadafkiisa ah maadaama la arkay isagoo dabaaldega ka mancinaya xidigaha kooxdiisa Barca marka ay doonayaan in ay bahdilaan oo ay si daran u forjiyaan cadawgooda haba ugu horeyso kooxda Real Madrid waxay ahayd ilbiraqsiyo aan la hilmaami karin markii uu Pique kala kulmay waxyeelo taageerayaasha kooxda ay cadawga yihiin ee Real Madrid ayna ku soo tuureen leetar yar waxa uu isku dayay Gerard in uu garsooraha ciyaarta u cawdo balse kabtan Carles Puyol ayaa ka diiday arrintaasi oo ku yiri iska tuur waxa aad gacanta ku hayso jooji cabashada ee ciyaar kulanka dabcan waa kabtan aan inaba caadi ahayn miyay niyadeenu ka bixi kartaa qaabkii kalgaceylka lahaa ee u sharfay qanaaskii reer Brazil ee Ronaldinho markii uu dib ugu soo laabtay garoonka Camp Nou iyo sida uu u dareensiiyay in gurigan uu yahay mid uusan marti ka ahayn
waxaad ku qasban tahay inaad qirto halyinimadiisa daacadnimada ay ku dheehan tahay sidoo kalena ay ka buuxdo garasho xeel dheer kaliya waxaad u baahan tahay inaad aragto xilliga ay Barcelona koobab ku guuleysanayso iyo sida isagoo ah kabtanka kooxda uu ugu sharfi jiray Eric Abidal inuu koobka kooxdu ay qaaday isaga gacantiisa kooxda ugu keeno isagoo ilbiriqsiyadaasi ka dhignaanaya kabtanka kooxda waana sidii la arkay isagoo gacanta u gelinaya calaamada xushmada kuna sharfaya inuu kor u qaado tartamada ugu muhiimsan ee kooxdu ay ka qayb gasho sida Champions League 2011 ee ka dhacay Wembley markaas oo ay ka qaadeen kooxda Manchester United iyo waliba horyaalka La Liga xilligii gabagabada waqtigiisa Eric Abidal kooxda kubadda cagta Barcelona waxa uu ahaa mid qiimo ku leh kubadda cagta waxa uu xushmeeyay qof kasta oo mudnaa xushmad hadii uu ahaa shakhsi fiican sidoo kale waxa uu ahaa xidig cajiib ah kani waa xidigii ugu wanaagsanaa aan la wadaago qolka dharbadalashada xirfadeyda kubadda cagta waa eriyadii uu ku qeexay baas aabihii Xavi Hernandez Cruz kabtankii hore ee kooxdiisa Carles Puyol waxa uu ku guuleystay koob miisaan leh hal jeer oo koobka adduunka ah iyo mar uu ku guuleystay koobka qaramada qaarada Yurub 100 kulan ayuu u saftay Spain 3 jeer ayuu UEFA Champions League kor u qaaday 6 jeer oo horyaalka Spain ah iyo 2 jeer oo koobka kooxaha adduunka ah dunida kubadda cagta ayaa xilligan ku mashquulsan in ay ka hadlaan Lionel Messi Cristiano Ronaldo iyo Ronaldinho balse in yar oo kaliya ayaa og in kani uu yahay guuleystaha ugu weyn ee kubadda cagta xushmay mudane Carles Puyol magacaygu waa Shaafici Maxamuud Nuur Shaafinho